xaalad dagaal ayaa ka taagan magaalada muqdisho kadib markii mucaaradka soomaaliya oo saldhigga booliiska degmada wardhiigley booqanayay ay ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya ku fureen rasaas. waxaa baraha bulshada gaar ahaan tiifiyada iyo wariyaasha halkaasi joogay ay soo bandhigeen muuqaalada madaxda u sarreysa mucaaradka ay ugu jiraan sheekh shariif sheekh axmed xasan cali khayre, cabdiraxmaan cabdishakuur iyo shirdoon, kuwaasi oo ka cararaya goobta ay taagnaayeen oo xabad ay ku fureen ciidanka booliiska soomaaliya. sidoo kale ciidamada ay wateen ayaa rasaas iyaguna huuyey ciidamada booliiska, waxaana halkaasi la sheegay in mucaaradka saraakiishii askartii ay wateen gawaaridoodii qaybo ka mid ah la gubay. ugu dambeyntii dagaalka oo socday muddo daqiiqada ah kadib, mucaaradka ayaa halkaasi isaga holeelay, waxa ayna ku laabteen saldhigooda rasmiga ee hotel jazeera, iyadoo la filayo saacadaha soo socda in shir jaraa'id ay halkaasi ku qabtaan. goobtan waxaa markii koobaad ku sugnaa taliyaha booliiska ciidanka soomaaliya ee gobolka banaadir, ninka lagu magacaabo macalin mahdi, oo saxaafadda kula hadlayay islamarkaana ay goobjoog ahaayeen askartii maanta dhibaataysay dadka shacabka ah iyo sidoo kale oday ay si xun u dileen. kadibna mucaaradka ayaa la sheegay in si toosa ay usoo abaareen halkaasi, islamarkaana ay soo istaageen saldhigga uu ku sugnaa macalin mahdi oo aada u cambaareynayay mucaaradka iyo waxa ay sameynayaan, isagoo ku sheegay inay yihiin kuwa baamboonanaya waxyaabahan dhacay dowladnimada kasoo horjeeda. mucaaradka ayaa waxa ay doonayeen iyaguna inay gudaha galaan, laakiin uma aysan suurtagelin. macalin mahdi iyo askartiisa ayaana xabad ku bilaabay, taas oo keentay in xabaddu si toosa la isku weydaarsado. waxaa la arkayay madaxda soomaaliya hore usoo maamushay ee sheekh shariif ugu horeeyo oo lala cararayo gaari lala gelayo, sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali khayre oo asaguna xabadda ka gambanaya, cabdiraxmaan cabdishakuur iyo shirdoon oo mid kastaba dhankiisa loola sii cararayo. arrintan ayaa waxa ay tahay mid filaywa ah oo magaalada muqdisho maanta ka dhacday, waxa ayna noqonaysaa xilligan madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu dalka hogaaminayo tii u horeysay oo xabad la isku weydaarsado. ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa lagu eedeynaya inay yihiin ayagu kuwa xabadda bilaabay, inkastoo mucaaradkuba ay wateen hub aad u fara badan islamarkaana ay soo duldegeen talihii u sarreeyey ciidanka. waxaana lagu eedeynayaa dhankooda mucaaradka sababta ay u yimaadeen saldhig booliis. dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa waxa ay aada u cambaaraysay falkan, waxa ayna sheegeen in mucaaradka soomaaliya oo khalaasadoon ah ay si toosa usoo weerareen mid kamid a saldhigyada magaalada muqdisho oo ay ku sugnaayeen ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya, halkaasi oo ay rabshad iyo dagaal ay ka sameeyeen.